qof cunay kalluunka xilwa ama cabay caanaha xilway xaajadiisu toostaa Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan aryaadaha kalamaanay abwaan Axmed Saciid Saabiro dawladda la dardaarmay wuxuu yiri kabadi dawladeyniyay kabadi oo hawsha badi kabadi sidii hore kabadi cadawgu hay naga baqee kabadi oo hawsha badi war abwaan Axmed Saciid Saabir iska jir dawladeena iska jir yaa rajay ha haddana kabadi tii hore kabadi yeeshanay waran Axmed Saciid nagu dayo walaal nagu dayo ayaan ku ogaaye ninku nooc badana war Axmed Saciid asoo korneel military aad aragtay inuu guul wada ahaa jirayad moogta aan ila gaduudinayna ahaada jiray ishayada gaduudan gunta calanka kaaga taal aan maqli jiray ma saga sameeyay aga wargooyin guul wada intii wali way jirtaa miya war bishaaro adiguba soo adigi lahaa Sayid Axmed Madoobe miyaanay guul wadaynahayn war guul wadaynaya toosin kala ma taqaanaane dadaal dawladeenniyay dadaalka badi maxaa ka fiican oo la fari lahaa aryaadaha dadaal waa loo baahan yahay berigana ugu dareedo dadaal la isfari lahaa ay joogtahay masaajid Ali Guduudo waxaan arkay madaxda ciidanku ka dhex qudbay haayaan dadkana gargaariya gurmad loo geeyay inta yareeda ma ku hertay saraakiisha ciidanka iyo maamulka shabeellada dhexena waxay dhaheen xoogii dalkana waa diyaar macaawisley 3 kun ka badanna waa diyaarsan yihiin hal meelna hadda kadib la weerari maayo 30 meelooda la weerara dadka tuulooyinka joogana waxay sheegeen shabaab aadan yabaal kama sokeeyo warheedahaya kalamaanay warkiina waxa iiga cadaaday inaan ciidan leenahay ku filan ciidayada hooyo cudud iyo awood lagu hubee aan cabsi aqoonin cadaanka iyo madowga og iyo caalamkoo idile cutub caalanka bulugaasitee caadil ugu dhaartay carradiyo inay daafacaan ciidayada hooyo cayayaan hadduu maaga iyo duul naxliga coota codad lagu yaqaanaa jiriyo shay cajaa'ibe sidii aar caroodiyo libaax meel cidla ajiifa cartanka iyo canaanta iyo dhawaqa hugun culayskooda cirka iyo dhulka waxa isqabsada ciira iyo boore ubtan iyo haday dirir gashay xaaja cala sawdo ama loo cimaamado dagaal cari iyo duulaana cidii lagu jeheeyaan marnaba caga ku taagnaane cadawguna markii uu maqlow carar bilaabaye ciidamada awoodaas leh loo carbiyay ciida sharaf iyo cisay mudan yihiin loo cimaamado ku casuuma Soomaaliya cod iyo taageero abwaan dalabo warkaaga waxaan u fahmay shabaabo aqlaad leedahay carar maxadame inaad uga jeedo abdullo adina langay aliyow dhayreediska hay itingiis dul misheey maynka darwayti warag baan dalab soo sheegay waa runtiisa shacabkii caroodiya hadii ciidanka israacay cirifyada hadii laga maray la isu soo ceyrshay cirko laga duqeeyay hadii ciida laga raadshay cidna waxaysan diidayn inay cirib go'ayaane agta mariya waa cadow in badan carun ku noolaay kabadi dawladeenniyay kabadi oo hawsha badi kabadi cadawgu haynaga baqee mar kale hawshaada badi war ma haysiina madaxweyne Xasan Sheekh shalay markuu soo helay shirki golaha wada tashiga qaranka wuxuu yiri safarkeena badan macnihiisu dalxiis ma ahan waxaanu baxaynaa waa dalkan inaan taageero u helno oo aan garab u helno cadawga sidaan ula dagaalami lahayn inaan garab u helno wax yar kadibna waa uu baxay safka hor in bahay furunta galay wargooyin madaxweynuhu mahiiraan buu ka dagay warta madaxweynaha Soomaaliya hadii bu'aala laga casuumo ma tagaya war caradu soo ka qaado bu'aala la tagay miyaa tiri war horta markii soo baqarax ka dhaxo maxaa madaxweynuhu inta u dhaarto haddana uu safar u aadaa dibadda war adiga qaraduus baa tahay horta dawlad kasta sanadka u horeeyo bisha Oktoobar sabti iyadoo tahay maxaa soo loo qarxiyaa war madaxweynuhu soo waa tagay wixii ka dhacayna indhihiisu ku arkay war madaxweynaha safarka soo aan bahawdan Soomaaliyeed aan jeeda baaray ha oo isii dadkii soo baka go'ino hagaada ma aha aga oo isin kulaha war qarax soo baka dhacon lalooyin miyaad aragtay warnimayo war ma haysiina waxa la yiri tuuga ka faa'iideysata qaraxyada dhacaya soo baxday annaga ka dambayna ma leeyihiin baaburti garaadaya furfurdaana warwarkayga dhax gelinina waxa la yiri markii qarax dhaco ciidanka ku soo yaacay dadka kala ceeriya qaar kamid ah waxay gacantoga aleestaan goobaha ganacsiga burburay maalintii u dambaysana soobe waxa la yiri ciidan badan la arkay la yiri oo moobeel la jawaabka ku guranaya war dadkii waa bahaloobeen oo waxa la yiri qarxi ugu dambeeyo soobe dumarkii jaadka gadaayo ku baaba'ay rag baa inta yimaadeen jaadkii oo qaar dhig leeyahay isku duudeen war waxa taas oo dhan ka sii daran dad waxa la arkay soo isiinayo ehelkeena dhintay
dhahaya waxaana ka mid ahaa la yidhi haweenay qaraxii hore ee Zoobe sheegatay in ninkeeda uu ku dhintay oo lacag badan loo aruuriyey haddana qaraxan markuu dhacay soo istaagtay oo TV-da waraysi siisay iyadoo ooyeyso dhahaysa ninkeygii yaa dhintay dad xasuus lehna ay soo aqoonsadeen inay tahay xariifadii hore markii hore qaraabatay aga warada cabdikuusow nin labaad oo guursadeen oo haddana ka dhintay soo ma dhici karto war qaraxii hore Zoobe kii qabay weli qabaa la yiri oo nool warna miyaw golhooba gubita dad gaali islaam weli eegan ongordaadan gudurora wajiranga leeray qaraxii soo balama markii dhii afar bilaamada gabar miid ee kor baroordeena leeri wali baayran walaalanu ogoon en wal unu ka gaadana ma leewal unu ku duugana ma leewal unu ka kafanaana ma lee baabuurkii dig jeeyfadni had baasiis ma haysana ka baadana Soomaali nahris badan taas ku goradaasana teleefanada antii la wada furudi ya EVC dalag lenkasiyo inta $7 lengridi ka dambana afartii bilaamada baroordaasi irkii dhulka meelmi galaan la waayad aragday aan ma aragna ku dhiidi miidkina meeli alo ku taban war waa falantiin aniga madaxweynihiin oo baxaan idin sheegay madaxweynuhu saddex wadan inuu tagay la sheegay oo laba kamid ah xalay isu maray Suudaan oo ka bilaabay Algeria oo maanta jooga wuxuuna uga qayb galayaa shirkii jaamacadda Carabta kadibna xana waxay sheegaysaa in Masar uu soo marayo sida markuu baxay uu sheegayna shabaab inuu hub u raadsanayaa cad war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh waxa telefoon kula soo hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan bayraktar sidii walan hasuugdi bogday waaray farmaajo waayaha nala jooga ma yiri shuwarmadii aan ku qaaliyay miyuu leeyahay war falantiin waxaan anigu idin ma sheegine Erdogan wuxuu madaxweynaha uga tacsiyeeyay dadkii lagu xasuuqay Soobe waana ku garab taaganahay buu yiri hayahe mirow garab taagan yahay bariga Algeria muu raacyahe war ma aad buu cambaareeyay wixii falka geystay war Algeria waxay ka hadlaysaa markuu cambaareynayo war madaxweynaha Turkigu bayraktar hadduu noo soo diray wax kale kama rabno horta daacad haduu yahay annaga ma toosno siiyo darawalla aan u dhiibano maalin kasta meesha rabna ku duqayne warna miyo dambuuto daabjiida saleeray Turkiga shamuuray ma ka bahaaso warmaday adigu buush weelkan buu armaad ka duqoobaysaa war xildhibaan Sakariya Daroniski oo sheegay inuu beeraha ku waraabsanayo xagee ku dambeeyeen war xildhibaan Sakariya beertiisa meel ay ku taalo lama arkine alla waysan balaayadii u gacan gelin aryaadaha hore waxa loo yiri waraabada la dirirtiisa loo tagaahe samigay Cabdulla waxa uu yiri oo dhibaata raagtayoon dhamaan in la isku dhiiraaday dhaasha dhibaata raagtayoon dhamaan in la isku dhiiraaday dhaasha wargooyin war ma haysaane masaajid cali gudud waxa loogu tagay baa la yiri guryaha ay deganaayeen amiiradu waxa laga helay baa la yiri xashiishad iyo khamri iyo gondob wax lagu sheegay ayaan dhaweydna galmudug qaay meesha la yiraahdo markii la qabsaday dhalooyin khamri ah iyadana loogu tagay baa la yiri Al-Sayyid Ahmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland wuxuu yiri hadda ka hor shabaabka markaan ka qabsanay raas Kamboni khamri iyo xashiish tira badan baan ugu tagnay marka gooyin nimanku soo wadaada ma aysan sheegan jirin war in oday oo la sheegay inuu yahay ninkii Zoobe ku qarxay maalin dhaweyd markaan hadalkiisa dhageysay wax absan waa weekay war shirkiga marka laga yimaado dambe la galo dhiiga muslimiinta ugu weyn marka qof banaystay dhiiga muslimka waa ku cibaadeysanaya jooga khamrigana cibaadu ka raadinayaayo waa ku shaamshaamaya war khamriga ka fogaada miyaa la dhihin war markaad cabayn weeye markaad ka fogaanayso aryaadaha xaajadu fogaatayo quraankii yaa la quursaha khamrina waa la quudaha quraankii yaa la quursaha khamrina waa la quudaha waraadaha kalamaanay war ma haysiine abwaanguura waxa loo magacaabay maarayaha tiyaatarka hayahe mu kalamiyo isxilqaan bilaabi raba war isxilqaan soo hadda ka hor ma eedino xilka loogama qaadin war hadda ka hor usugo dhisay dhismadiis dhamaay ya safar gaaban ambahi usugo safarkii ka moqanya ya lagu furdayna kaaga badalan wal eri hadana ma leelan kanagayhe war madaxda soo laabatay madaxweyne Xasan Sheekh baa u horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir baa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madow baa kamid ah hada guurana dadka soo laabtay buu kamid yahay aryaadaha xaad isu daalaysiin wallahi lama dhihin rati walba rabtiisiyo rabadintiisiyo rabiya rati walba rabtiisiyo rabadintiisiyo raba war Cabdulla hadda nin walba rarkiisii buu rabaa miyaadna leedahay lan walba walaagiisan baradii baahanyana eri war kalamaanay abwaanguura hadduu nabadgelyo inka waayay ciddii kaloo inka raadinaysaa inka waalan war adigaan fahmine xan ninkii ku baraa lahantaa war
reeramar waliba kama mahayana lagu hanta lagu hasuusta akaareyso laga badi baan maqli jiray war kalamaan ninna ma amaanta ninna ma caydee qof waliba wuxuu yahay bay ku sheegtaa kollaybana nin xil qaaday eed qaad baa hore loo yidhi war xalaa la magacaabaa lagu yidhi goorma eed qaaday war sidaysanka aalasan ma afka hortiisa afeefa la dhikadee irita hortiyana ooda la dhikadee waa la eri war eed huri maayo mana qarin doonno nin xil qaaday eed qaadye guurow yaa la eri war xilka loo magacaabay qof hadduu xalli waayo xaynta reer kalamaan xajiin wowla diyaar war anigu xalay markaan arkay magacaabista maareeyaha waxaan soo xasuustay haddaan hobolladu dhawaaq dheer dhagaha shacabka ugu shubin way dheelinaysaa waxaana ii muuqata in mar dhow shacabku isxilqaan u geli doonaan dagaalka shabaab wargooyin war ma haysaan wasiirka warfaafinta Soomaaliland wuxuu yidhi golaha wada tashiga qaranka ee Soomaaliya hadday wax isku hayaan had difaaceen shacabkooda la xasuuqayo Soomaaliland faraha kala baxan waxna uma tari karaan waxna kama dhimi karaan masarafle hobasan haystan moorada tidin le oo dawaliya war Salmaan Cali Koore xisbiyada Soomaaliland baa ka ammaan heli waaye Soomaaliya iska dulqaadato war gabaasow xaalka ma lagu ogyahay aad bixinayso wasiirka warfaafinta galmudug falagla wuxuu yidhi hadal looma baahne ficil ayaa la iska rabaa war wanaagsan qorqor ma la ogyahay war adigu maxaad u maqashiinaysaa eega Soomaaliland war uma haysaane wasiir Koore wuxuu ka jawaabay jariirada la yiraahdo American Associated Press war ay Soomaaliland ka qortay kaasoo sheegayay inay Soomaaliland laaluushayso xubno senatarada Mareykanka iyo Koongareeska ka tirsan iyo macalqaar Yuruba wuxuuna yiri taasi waa meel ka dhac loo geystay dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo tii Yurub iyo Ameerika war xildhibaankii Ingiriiska ka doodayay kadibna Soomaaliland tagay ma lacagta la sheego laaluushka uu doonayay horta waxaan hubaa lacagta laaluushka adduunka akoonna la isugu shubo bankina la isuma dhigo warkiina igu batay maanta intaan geed ka iman war aan la yaaban raadiyo kulmiye ka maqlay waxayna dhaheen hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa shaabax isugu dartay digniin hanjabaad iyo cagajuglayn marka Amnesty waan maqli jiray xadgudub inay cidii gashay ku eedeysay goormay hanjabaad bilowday iyo dagaal ambaareen wal iska ogyu war ambaareen waxba tari mayse hay'addu inay jawaab ka bixiso dadka laynaya way tahay war kalamaanay gabagan mar hore inay bilaabad iga dhex gasheen al-shabaabkii caadaysan jiray dhiigga cabistiisa ciroolaha kuwii layn jiray iyo culimo u diinka caruurtii iyo dhallaanka iyo kuwii aan cafiyin hooyo military caraysanay markuu weerar ku casuumay gantaalaha markii lagu cabiray caada sare gaara hadba guuta aaboon markay ku callaqeen suugag casho iyo quraac looga dhigay nuucyo kala cayna ayagoo caloolxuma dishay caata socon waayey oo caguhu barareen ayay hawdka cararaaneen carraday ku noolaa jireen ciidanka dagay waa tas calanka buluga la suray ciida badideede shacabkay caburiyeen hadday nabad ku ciidaan war hadida askariyadu unu saagas Ingiriido dhaxdhaxada ku eena warmadayo warmoog baa tahay madaxweynuhu meel dhaxo la istaaga mal uu ku yiri warta Allah la yidhiso war gurmadka dadka igu sawirtaa laga daayo war abaan Cabdulla Raagi Allah u naxariistay wuxuu yiri dhankaas maad u kacdaan qorraxdu ay u dhacayso dhankaas maad u kacdaan ay ka soo dhalanayso dhaxdaxa idin taagay dhulku heedin laqee marka wixii dhaxdhaxaad maanta sheegta dhulku hal laqo